السلام عليكم أصحابتي وإذن سلامي مركو وهريسو مركو حكتو حارو إنان كهالضو ورنميها والدينتا وربا وضا والدينو قدكينا بيدكو سوقلا caruurtan yaryarka ah oo taleefanada inta loo dhiibo oo waxyaabo ay daawanayaan ama programmada ay la socdaan oo series-ka ah laga warheenin kadib markay ilmahan tagaan baxaan asoo baraarugays waalido waxa ay leeyahay ilmaha lala socdo war ilmaha balaaya u soo baxday balaaya wax u akhriso casharo u akhriso balaaya wax u sheegtay ilmaha laga warhayo mid kale ana waxaan fahmaa waalidiinta Soomaaliya ma faham bay ka tahay ma waxay ka tahay aqoon yari ma waxay ka tahay ilaa hadda ma garan la'ahay ilmo yar oo aad u yar da'da 6 jir 7 jir 10 jir ilaa age-ka teenage-ka oo 18 ka yar oo haddana wuxuu rabo loo sameynayo sidoo rabo loo yeelayo I don't know inay faantahay in kala ma garanayo inay aqoon daro tahay waa khalad ilmaha waa lala hadlaa wixii xun waa loo sheegaa kaliya lama qasbo kaliya lama dagaalamo tartiib si caqli ah wax loogu sheegaa waa la fahamsiyaa waxaan ayaga way la fiican tahay waxay u maleynayaan wax xun ama wax fiican bay moodayaan way rabaan laakiin adiga markaas maskaxiina u fahamsiisid oo ugu sheegtid waxa ay u baahan yihiin inay ama caafimaadkooda dhib u tahay ama maskaxdooda dhib u tahay ama ayaga nafta ahaantooda si guud ee dhib ku tahay waa la fahamsiyaa kadib ilmihii markuu fahmo wixii uu iska daynayaa ayadoona la qasbin ama pressure saarin laakiin anaga I don't know parenthood-ka aad bay noogu adag tahay Soomaali hadana waxaa arkayay ilmo yar oo tuition u dhigo ilmahaas oo maqan jooga absent minded oo maskaxdooda joogin oo wax alaale wixii loo sheegay dhanba aan ku soconin sababta marka u fiirsadana waxa keenay hal ma laba ma aha way far badan yihiin ilmo badan waay ilmahaas waxay ka yareen da'da 15 jir bay ka yareen waa adiga 15 waxay ka hooseeya ilaa 5 jir waay waxa sababta u ama sababayn waxay tahay ilmaha telefoon ay isticmaalaan telefoonkan oo qofka weyn ka dhigaya caag maxaa u maleynaysaa ilmo yar oo waliba programmiye oo asaga loogu talagalay telefoonka loogu shubo application game iyo waxa jiraan filmaan series oo anime oo waliba teenage-ka aad ay u jecel yihiin oo fiirsadaan haddaba marka programyadan ama filmaanta maxaa lagu dhex qariyaa in caruurtan laga dhigo caruur oo very ishig muxuu ahaa caruur aan la controli karin ama waalidkood waxba ka maqlayn madax adag caruur dhaga adag caruur kula soconin oo kula joogin oo adiga dhaqankaada haysanin oo akhlaaqiyadka islaamiga haysanin oo dhaqankii Soomaaliya shaqo ku lahayn oo waxyaabaha ay baranayaan ama iskuulaadka lagu barayo aan la soconin ilma adduunka la joogo waxaa la barayaa adduunka in sida rabtid u noolaan kartid waxa rabtid aad samaysan kartid haddaad rabtid aad nin noqon kartid kii oo gabadhi loo sheegaya haddaad wiil tahay aad gabar noqon kartid ikhtiyaar calaashan inaad ikhtiyaar leedahay waxaad samaysan kartid oo lagu qasbi karin cidna ku controli karin cidna wax ku sheegi karin waxaasoo dhan oo mentality-gooda lagu bedelayo ayaa ilmaha loo programmadaas loogu soo dhex qariyaa waxyaabaha aadka u weyn oo ilmaha la barayona waxaa ka mid inay falaagoowaan ilmaha inuu falaagoowo xataa waxaa la barayaa gurigii iyo noloshiisii iyo waalidkii iyo sida iskula nool yihiin ayaa wax badan sheeg inuu ka falaagoowo ilmaha loo sheegaa soo marka waxaad arkaysaa inuu yaro madax adag inuu yaro kula sheekaysaneen kula joogin maqan iska aamusan waxyaabaha saameynta programmers ay daawanayaan oo ilmaha saameynta ay ku yeeshaan bay ka mid tahay in cunuga maanta too busy uu yahay markuu telefoonka fiirsanayo very happy very active yahay laakiin markay timaado in ama iskuulkii ama casharadii uu ka shaqeynayo ama homework-yada uu sameynayo ama howlaad kale oo guriga uu ka shaqeynayo uu yahay cunug dhibsanayo caajis dareemayo asaga dhan nervous yahay markii la hadlo oo buuqa dagaalama because waxaan dhan kuma socdaan
kulama joogo ilmaha waa ilmo tagan ilmaha waa ilmo jawi kale iyo adduun kale la haysto sometimes xataa marka u fiirsatid barnaamijyada ay fiirsanaya ilmaha waxaa ku jirta xataa in aysan diintii islaamka ahayd waxyaabo xadgudub ku ah oo iisha kasoo horjeeda in ay baranayaan ya sida inay ku leeyihiin xarba u tahay inaa cidda doontid aad aamintid ama you don't even need inaa ilaahay iyo waxaas aa caabudid ma lahan ikhtiyaaraad badan wax un aada u dul qaadan karin bay ilmaha ka hadlayaan so haddaba dagaalkaas wuu nagu socdaa Soomaaliya haddaad ku baraarugsaneen especially waalidiinta hooyooyinka khaasatan haddii hooyo waxbarata ay tahana de ilmaha la soco barnaamijyada ay fiirsanaa la fiirso oo la sheekayso oo wax badan maadaama iyaga si caqliyan iyo maskaxiyan loo dhalan rogaayo oo naloogu diraayo oo looga dhigayo ilmo aanaga shaqo nagu lahayn aynagana si maskaxiyan aan kusoo ceshano ilmaha ayaa lala dagaalin xataa haddii la arko barnaamijyadaas waxaas inay fiirsanayeen si caqliyan iyo maskaxiyan haloola hadlo haloola sheekaysto inaan waxaan dan oogu jirin anaga aan shaqo ku lahayn dad muslim nahay muslimiintana wax gooni iyo shuruuc gooni ay leeyihiin dhaqamo gooni ay leeyihiin iimaankooda waxaasoo dhan laga shaqaysiiyo si maskaxiyan calaashan inaan anagana waxaas uga hortagno ama ilmaha anaga aan soo ceshano ilmaha hadday yaryar yihiin fadlan halaga daayo taleefanka halaga daayo TV ciddii keensato guriga TV-gaas is enough at least programming oo fani iska fiirsaa laakiin waxa dhibka weyn oo ka jira waa taleefanka war taleefanka Soomaaliya halaga waadoomo walaa qof weyn iyo walaa qof yar taleefanka fidna weeye gaaladii baa ka cawanayso gaaladii baa ka sheeganayso taleefankan iyo waxyaabaha laga daawanayo waa dhib waa programyo inaga nagu socdoon dhala rogaayo oo waxyaabaha hadda arkayna dhibaatada ka shaqeynaya please halaga waadoomo waalidiintan waxaa la ilmaha yaa la dagaalamin yaa la colaadin yaa lagu buuqin kaliya halala socdo si caqli aan haloo soo celiyo ilmihii waa tageen ilaahayna aan barino aan duceysano si ilmaha noogu xifdiyo wasalaam